qofku markuu rabo inuu kalsooni naftiisa ku abuuro waa inuu sameeyaa intaasoo tajribo oo wanaagsan oo runtii u noqda khibrad oo markastuu israado waxa sameeyay naftiisa dib ugu soo celiya waxa hore inuu u sameeyay kadib naftiisu markay waxa soo celiso waxay ogaanaysaa wax kasto waxa lamida naftiisu inay sameyn karto ayay ogaanaysaa marka muxuu helayaa kalsooni buu helayaa dawada qodobkaasi waa qodobkii labaad qodobka saddexaad ee kalsooni aad naftaada ku abuuri kartaa waxa weeyaan inaad isweydiiso waa maxay khatartan aan ka baqanaya inta badan qofku markay kalsooni darro ku dhacdo macnaheedu waxaan baqashaa ku jirta uu ka baqanaya imtixaankii inuu galo wuxuu isla wad ku fashilmaysaa waxa laga yaabaa isla ganacsiga ha galin waxa laga yaabaa ku khasaartay marka maxay meesha baqashaa jirta marka hadda arinta xal u rabto maxaad isweydiinaysaa horta maxaa ka baqanaya markaad ogaato waxaad ka baqanayso ay waxaad isweydiinaysaa waxa aan ka baqanayo sidee baan uga hortagi karaa markaad ogaato sidaad uga hortagi karto ay arintaas ku soo baxdo isla maraxaantaaba waxa ka tagaya kalsooni darradu way ka tagaysaa dawada tusaale aan ku siiyo kaba soo qaadba wax lagu imtixaankii bad galaysaa markiiba waxa kugu bilaamay kalsooni darrada waa kugu bilaamantay wad warto waxaas tiri war bilaad ku dhacday imtixaanka baqashada waa kugu bilaamantay baqashada kugu bilaamantay sidoo xalin kartaa inaad isweydiiso maxaan ka baqanaya imtixaanka hadii aan galo maxaan ka baqanaya marka maxaad oranaysaa waxaan ka baqanayaa maadaama imtixaanka aanan diyaarin waxaan ka baqanay imtixaanka inaan ku dhaco maxaa markaa ku soo baxay inaad imtixaanka aanan diyaarin inaad ka baqanayso arinta darteed inay sabab u noqoto inaad dhacdo marka maxaa laga rabaa istiraatiijiyad ku saxlad arinta samee oo waa maxay imtixaanka diyaari imtixaanka marka aad diyaariso maxaa imanaya in kalsoonida ku soo noqoto in baqashada ay ka tagto kadibna imtixaanka aad gasho adigoo aad wanaagsan saadaradeed waxa la ilaahdaa qofku markuu kalsooni darro hayso waa in isweydiiyaa kalsooni darradan maxaa keenay soo baqasho ma keenin oo waxaan ka baqanayo maxaan uga baqanayaa kadib wuxuu ka baqanayo waa inuu xalliyaa markuu xalliyo kalsooni ayuu helayaa dawada arinta waxa la mid ah oo arinta qodobka raacaya markaad rabto kalsoonida inaad naftaada runtii ku abuurto waa inaad noqotaa qof qaata riskiga waa inaad qaadataa meesha aad isleedahay waad runtii meesha waad ku dhacaysaa haddaad markasta ka istaagto haddaad markasta khatarta ka baqato oo tiraawanayo ganacsiga gali maayo oo riski buu leeyahay ka gali maayo riski buu leeyahay haddaad markasta saa uga baqato kalsooni darraa kuga abuurmaysaa meel lama gaadhisid weligaaba ganacsi ma gali kartid maxaa markaa laga rabaa daawada waxaa laga rabaa riskiga inaad qaadato oo sideebaad u qaadanaysaa waxaad u qaadanaysaa marka hore waxaad isweydiinaysaa riskigaan ka baqanayaa intee in leeg baa suurtagal ay tahay inuu dhacayo isagii baad analysis ku sameynaysaa waad taxliilinaysaa waad la fakuraysaa waxaad eegaysaa inteebu macquul yahay oo dhici kara haddii aad aragto inuu runtii riskigan uu dhacayo dawad ka istaagaysaa laakiin haddaad u aragto inuu aad u yartahay inuu dhaca maxaad sameynaysaa riskiga waad qaadanaysaa hawshiina waad galaysaa marka qodobkaasina waa qodobada lagu xaliyo kalsooni darrada mar alla markaad riskiga qaadato maxaa imanaya kalsooni baad helaysaa dawada qodobkan waxa raacaya oo isaguna la mid ah oo ah waxyaalaha lagu xaliyo kalsooni darrada inaad go'aamada qaadato markaasoo go'aamada badiso inaad qaadato waa markaasoo kalsooni aad helayso sababtu waa maxay markasta khibrad bay naftaadu helaysaa go'aan markaad qaadato khibrad baad ka helaysaa markastoo khibrad dheeraad aad heshana waa markastoo kalsoonidadu ay sii runtii abuurmayso sii runtii dhismayso weeyaan marka go'aamo inaad qaadato laakiin sadawada waxa shardiya go'aamada marka aad qaadanayso waa inaad la fakurtaa waa inaad dhinac walba ka eegtaa waa inaad ogaataa go'aankaad qaadanaysaa inuu u dhow yahay ka saxda ahaa markaad arinta dhinac kasta ka eegto eed ku qanaacdo eed runtii kala hufto inta xaleed haysato go'aanka saxda markaad qaadato waa inaad ku adkaysataa marka maxay imanaya kalsooni inaad hesho bale waxa la iraahdaa waxyaalaha runtii ugu muhiimsan ee kalsoonida keena waxa kamid ah qofku inuu wax la iraahdo fashalka inuu tajribo ka dhigto fashalka inaad ka faa'iideysato haddii aad tiraahdo fashilmaysaa markasta maxaa imanaya kalsooni darro marka maxaa laga rabaa inaad isku qaado meelo badan oo laakiin hadduu fashilku soo gaadho tajribo aad ka dhigto khibrad aad ka dhigto experience aad ka dhigto aad ka faa'iideysato oo kor uga socoto sababta xaqiiqada la ogaaday wax weeyaan qofku ilaa uu fashilmo guusha dhabta ma gaadhayo marka aad fashilanto ayaa waxaad isweydiinaysaa maxaan u fashilmay kadibna sababku markuu ku soo baxo aad kor uga sii kacaysaa dawada qodobkaasi waa qodobkii saddexaad qodobka afaraad ee lagu daweyn karo runtii kalsooni darradu daawada wax weeyaan inaad runtii akhrido dadka guuleystay dadka runtii wax qabsaday taariikhdooda inaad akhrido
وقضب آدو مهمة تطبع صور رفاضي تطبع قوليسا عالم كان ولكن قوشة واحد كسو قارين رفاض إيه نباتو إيه هلقمي كسو قارين مركز ساد أوغاتو inay jireen dad adiga kula mid aha oo waxan gaaray oo runtii halgamay naftaada arinta maxay ku abuuraysaa kalsooni ku abuuraysaa naftaada waxay isweydiinaysaa war dadkaasiba way gaareen hadaftoodii way gaareen aniga maxaa ii diidaya anigu miyaan la mid ahayn isku maskax maanan ahayn waan gaari karaa maxaa markaa imanaya marka qisaska iyo sheekooyinka dadka akhrida guuleystay waxa imanaya naftaadu inay kacdo kalsooni inay hesho kadibna ay dhaqaajiso wax kale oo daawada la mid ah arinta oo qodobkaasi raacaya afraad ee hadda aynu sheegayno inaad runtii aqoontaada kor u qaado ثقافة كور إنه قاطو مركز أقوانت هذا كور قاطو ومركز كالسوني هليسو مركز وحن أبارتين كما سوقت أكونت ما بارتين أكونت كها بارتين هدي أذكر ده إن تكون نقطة خبير أو يسقى وحلقة ويديو هدي أذكر ده شيء محد هلسة كالسوني بد هلسة واحد أوجانا سمر الله مركز أكونت لقى هذا إن تهاي قفك أوجمضان أهينو كحضره ما مركز هذا شيء كالسوني بد هالشيء سيدا بدو هالشيء أقوم بد كل هالشيء شيء جبت أهو بارتين أبد أو أكونت سو باري كتبتي سو بآخرتي waxaad markaa heshay runtii kalsooni saa daraadeed dawada waxa laga rabaa hadii aad kalsooni rabato inaad hesho shaqada aad ku hesho waxa isku dayda waxa aad ka shaqeynayso inaad noqoto qofka ugu fiican ugu khibrada badan maxaa markaa imanaya kalsooni baa imanaysa cid kastoo wax ka weydiisa interview hadii laga qaadayo imtixaan hadaad galayso waxaad noqonaysaa qof si caadi ah uga jawaaba sababtu waa maxay naftaadu waxay yaqiinsan tahay in khibradeedii ay aqoonteedii leedahay dawada waxa la mid ah oo qodobkan raacaya oo waxyaalaha keena kalsoonida runtii kamid ah ee isla aadka u muhiimka in runtii isku dayda daawada inaad raacdo dadka runtii la iraahdo waa positive-ka qaabka positive-ka dadka u fakaraya qaabka wanaagsan dadka u fakaraya dadka dhiirigeliya dadka runtii muxuu ahaay ku sameynaya dhiirigelinta inaad dadka noocaas raacdo dawada qodob aad u muhiim ah iska ilaali daawada hadaad rabto kalsooni naftaada inaad ku abuurto inaad raacdo dadka inta badan runtii aad oranayso waa negative ayay runtii yihiin wax kasta waxay keeyaan dhinaca xun wax kasta waxay ku oranayaan waxa lama qaban karo waxaasi waa adag yihiin waxaasi suurtagal ma aha dadka qaabka u sameeysan ee laga yaabo dalka inaanay runtii jeclayn dalka inay leeyahay waxba ma yaalo dalku waa kan wax kasta laga yaabo in dhinaca xun ka eegaan dadka noocaas ah hadaad la saaxiibto oo raacdo maxay imanaya adiguna qaabka inaad u fakirto naftaadu ay tiraahdo meesha shaqo ma taalo shaqo lama helayo waxbarasho ma taalo kelimo yaalo aakhirka aad runtii halka istaagto oo dhaqaaqi weydo dawada qodobkaasi waa maxay waa qodobkii afraad dawada qodobka shanaad waxa weeyaan hadaad rabto naftaada kalsooni inaad ku abuurto dawada waxa laga rabaa muuqaalkaaga inaad hagaajiso qaabka muuqaalkaaga dharkaaga had xiran tahay waana hagaajisaa sababtoo muuqaalka marka aad hagaajiso naftaadu kalsooni bay siinaysaa oo qofkan runtii dadkan aad la kulmaysaa inta badan dadku waxay eegaan qofka muuqaalkiisa iyo dharku xidhanya marka soo dharkaaga xirantay waxa uu nadiif ay yihiin maxaa imanaya dadkina runtii ku soo dhaweeyaan taasi maxay keensanaysaa adiga naftaada kalsooni inay hesho marka isku day markasta inaad qof nadiif ah oo labiskiisu u fiican yahay inaad ahaato dawada qodobkan waxa raacaya markasta isku day kalimaadka adeegsanaysaa كلمات في عنين نقطان كلمات رنتي رجلنا نقطان كلمات النيجاتيف كايس كإلالي واحد أنت بدأ استعماشها كلمات كتلمامية إن تقول سنيسو إن الميل جاريسو إن ذو حقرسن كرتو إن تكرتل هذاي إن أقول هذاي كلمات كنوعات المامية رنتي تفاؤل كتلمامية كلمات كنوع عصبادي حتى تكون بديسو مسكح هذا الجليان مسكح مركي جلان محي منايا درين كاجا إن الجلان درين كاجا مركي جلان وحي منايا سلوك أجد أخي وحكي بدلان dawada qodobka ugu dambeeya ku soo koobina wax weeyaan ee tilmaamaya qaababka runtii lagu sameeyo kalsoonida lagu sameeyo waa qodobka ugu muhiimsan bal waa qodobkan oran karo waa ka kaliya ee hadii aad la timaado boqolkiiba boqol kalsooni ku abuurayo dawada qodobkaasi wax weeyaan inaad kalsoonida qaadato ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad markasta eegto ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad sameynayso raali makaya halkaad ka eegayso dadku raali ma ka yihiin dadku maxay ka sheegayaan dadku talo maxay ku oran doonaan oo kalsoonidii dhinaca dadka aad ka eegi lahayd dhinaca ka daa waxaad ka eegtaa wax ka soo qabanayso go'aan markaad qaadanayso waxaad isweydiisaa ilaahay raali ma ka yahay si kala dawada hadaan kuugu dhigo waxaad isweydiisaa go'aankan aad qaadatay aakhira maxkamadeeda marka lagu soo taago ma ka jawaabi kartaa intaasoo kaliya hadaan markaas isweydiiso maxaa imanaya kalsooni baad helaysaa markaad ogaato go'aankan aad qaadatay inaad aakhirada ka jawaabi karto maxaa imanaya inaad ku dhaqaajiso
marka noloshaada ugu isbedelaysa noloshaada oo dhan hadaad ku salayso wax kasta oo qabanayso aad ku salayso inaad ka eegto Ilaahay subhanahu wa ta'ala arinta ma ogoliya raali ma ka yahay aakhire ma ka jawaabi kara hatta noloshaada oo dhan go'aamadeed qaadanayso oo dhan arinta aad ku salayso waxaad helaysaa kalsooni dadka kama baqanaysid isma oranaysid dadku talo maxay ka sheegayaan isma oranaysid dadku maxay ku amaani waayeen isma oranaysid dadku maxay iilayeen sida iyo sida sababtu waa maxay kalsooni baad qabtaa kalsoonida xagaad ka heshay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka daawada waxaan ku leeyahay hadii aad rabto kalsooni dhaba inaad hesho oo naftaada aad ku kalsoonaato oo go'aamo sax aad qaadato oo runtii aad muxuu guul gaadho maxaa laga rabaa inaad isku xidho Ilaahay oo markaas isweydiiso arintaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma ogol yahay raali markaas waxay manaysaa kalsoonida dhabta ahayd inaad hesho wax kasta oo aad ku dhaqaajinaysaa marka wax ku hor istaagi kara haba yaratay ma jiro